ay gubayso isaga barta uu taagan yahay weliba si dhaqsiya ku keen ayuu ku tiri amiirka ayaa ku dhahayo haye shumacan iskaga dhig holacii uu ku shidmi lahaa. Markaasi jinniyadii waxay dhahaysaa fikrada la timi waa fikrad xun, laakiinse waan iska dhigayaa maadaama adigaad ku hamisay. Waxay iska dhigaysaa holac yariisa. Amiirkan waxa uu ku shubayaa biyo, laakiinse markuu ku shubay biyo waxa uu sii noqday holaca mid sii holaca, waxaana uu isku soo bedelay haddana qaabkiisii jinniyadda ahayd. Waxaana ku dhahaysaa allah soo ma aragtid, adigu waxaad moodaa inaad aniga sidaas dheeldheesha igu damin kartid. Aniga ma ihi holac caadiya, aniga jinniyad ayaan ahay, mana damayo. Amiirka ayaa haddana waxa uu ku dhahayaa isaga oo fikrad labaad keenay, waxaa isku beddeshaa dhagax aad iyo aad u weyn. Dhagaxaas ayaan rabaa inaad adiga isku beddeshid. Naagtii jinniyadda ahayd ayaa dhahayso anigu wax walbaan isku beddeli karaa. Intay dhulka iyo dhankaas ay timaadana ayaa waxay isku beddelaysaa dhagaxii weynaa. Amiirkii intuu soo qaato dubbo ayuu ku qaraacayaa dhagaxiina gabalo yaryar ayuu noqonayaa. Gabalada yaryaraa ayaa isku soo beddelayo holac yariisa, waana isku imaanayaan ugu dambeyn. Markaasi waxaa samaysmanaysa haddana jinniyadii waxa ay ku dhahaysaa oo adiga waxaad moodaysay in adiga markaad i kala jejebisid aan noqonayo mid kala tafaruqsan. Soo ma ogid holaca inuu isa soo jiito, haddii isa soo jiito holacana aan aniga soo samaysmayo. Amiirka ayaa haddana mar labaad mar saddexaad fikrad la imaanayo, taasoo inay jinniyadda iska dhigto fargal. Waxaanu ku dhahayaa waxaa iska dhigtaa fargal yariisa, kaas waayay aniga hamigayga ugu dambeeyo. Jinniyadda ayaa dhahayso dhib ma leh, fargalkaas anigu waa iska dhigi karaa, waxaase dhib iguma hayo. Iyada oo faraxsan ayaa jinniyaddu waxay iska dhigaysaa fargal yariisa. Amiirkii intuu fargalka soo qaado ayuu ku ridayaa weelkii dahabiga ahaa, waana ku dul xirayaa. Waxa uu ekaa weelka inay ka dhex qeylinayso naagtii jinniyadda ahayd. Amiirku waxa uu ahaa mid aad iyo aad u qabanayo weelka oo isleh yayna ka soo bixin jinniyadda. Cabbaar markii qalqaylisay jinniyadda, iyada ayaaba dan iskaga degtay oo qayladii waa ay yaraysay oo waxa uu noqday weelkii mid caadi ah oo degan. Amiirkii ayaa ugu dambeyn ku guuleysanayo inuu ku xiro naagtii jinniyadda ahayd weelka. Waqtigaas meesha waxaa soo gaarayo gabadhii saaxiradda ahayd, waxaana ku dhahaysaa waxaan maqlay in jinniyadda ay ka soo baxday weelka, sidaas darteed ayaan u soo orday dhankaasi keenta. Laakiinse adigu waa ku baasay imtixaankii waana dishay jinniyadda, weliba waxaa ka dhigtay mid aad iyo aad u yar. Ugu dambeyn waxaa ku xirtay weelkii. Waxay ku dhahaysaa waxaad leedahay hadiyad aan kuu soo diyaarinayaa, waxaana diyaarinaynaa maanta arooskeena oo waa isguursanaynaa. Laakiinse aniga maalinkii waxaan noqonayaa gabar, habeenkiina waxaan noqonayaa naagtan saaxiradda, ama maalinkii waxaan ahaanayaa naagtan saaxiradda, habeenkiina waxaan noqonayaa gabar qurux badan. Adigu saas ma yeeli lahayd? Anigu waxaan ka dhaho ma aqaano, aniga saas ayaa noqdee. Amiirkii ayaa ku dhahaya gabadhii dhib ma leh, sidaad tahayba waan kugu jeclahay. Qofka lama fiiriyo qaabku eegyahay ee waxaa la fiiriyaa qalbigiisa iyo qaabku kuu jecel yahay. Markuu saas ku dhaho amiirka ayaa waxaa iska bilaabaysaa gabadhii saaxiradda ahayd inay iska oydo. Waxaanay dhahaysaa allah aniga maxaa saan u noqday, allah aniga yaa saan iga dhigay. Ilmadeydii ayaa dhulka ku qubanaysay. Laakiinse ugu dambeyn naagtii saaxiradda ahayd waxaa isku soo beddelaysaa gabar qurux badan, taas uuna filayn amiirka. Gabadha ayaa inta isfiirfiirisa ayaa waxay hab siinaysaa amiirka, waxaanay ku dhahaysaa adiga dartaa ayaa maanta igaga qaadmay habaarka. Aniga waxaa i habaartay naagtani ahayd jinniyadda yariista. Hadda habaarkii waa iga qaadmay maadaamaan helay qof i jecel. Amiirka ayaa dhahayo alla waa si wanaagsan, soo baxaan aadna qasriga, waan isguursanaynaa, waxaan dhiganaynaa xaflad aad iyo aad u weyn. Aabahay waan ogahay inuu sukahay diideen. Maalmo ka bacdi wiilkay amiirka waxa uu imaanayaa qasrigii, waxaana halkaas ugu guursanaya amiirkii iyo gabadhii quruxda badneed. Asxaabay maanta sheekadeyna halkan ayay ku soo dhammaatay. Inta sheekada ku xigto aan ka soo gelinayo, waxaan idin dhaafay barwaaqo iyo bashbash.